كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم زدنا علما ينفعنا في الدارين. كتاب كلمية الحديث كان كسو جرنا وحش لسو قانا حديث كي سيدتني كواد عن جابر رضي الله عنه الله كره لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوع كورنا ينحرسنا وتقلي رسول كركي ساعة قال إن رسول كيري لا تأكلوا وكعننا بالشمال بيحدى وحكعننا فإن الشيطان شيطان كي يأكل كعنا بالشمال بيحدى يسيا وحكعنا رواه المسلم. الحديث كان وحن كقاضنا إن نبي وحنا كنا هينا يا إن لقوعنا واحد عنت بيحدى يوم لقوعنا ورأي وحنا وصل شيء حديث ورأي كسر مرة النبي يقولوا جعلا وحوي مديجي سجا شيء كسرنا إنه مديك تكو قبته وجعلا marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sunneeyay inoo sunneeyay in midigta wax lagu cuno oo wax lagu cabo ciladina waxa la yiraahday waxa weeye shaydaanka wuxuu adeegsadaa gacanta bidixda marka saas darteed gacanta bidixda waxna ku cabin waxna ku waxa weeye cunin ee midigta isticmaal nabigu sallallahu alayhi wa sallam cunugi yaraana markuu barayay adabiyaadka wuxuu ku yiraahday waxa weeye dhanka ku xiga ka cun bisinka ku bilow midigtaadana waxa weeye ku cun marka saas loo baahan yahay adab dacam marka nabigu wuxuu leeyahay la taakulu wax ku cununina bishimaali bixda wax ku cununina oo gacanta bixda nahigaas ku soo aroorayo wax ku cununina iladu waa maxay yeelay fa inna ash-shaytaana shaydaanka yaakulu ku cuna bishimaali bixda isaga wax ku cuna rawahu muslim. عن جابر رضي الله عنه الله كره نقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوح كورنا ينحرس نمدقل كركي ذاته قال إن الرسول كيرادي من روح لقي الله إله إلا كل ما لا يشرك يسوى شرك ويلين به الله شيئا وحبه دخل الجنة الروح في جنة يقلي ومن لقيه ومن روح لقيه إله إلا كل ما يشرك والحال بلو كل ما يشرك وشرك يلي به الله شيء لو ذا جنيه دخل النار بروح سجل رواه المسلم. نبي حديثك وحنا كل شيء صلوات ربي وسلام عليه وإن قاضنا خطرت أولي هي شرك وين إله سبحانه وتعالى حق لي عدك العسيسه. مركا نبي يقول لي يقف إله إلا كل ما إله سبحانه وتعالى ولا لكل ما يا دوم مؤمنين إله سبحانه وتعالى وأرك يعنين. مركا إله نبي يقول لي روح إله سبحانه وتعالى لكل ما يسوى وح شرك يا سمين. جنو قليا waxa weeye ruux mar doon shirki ku una dambigiisu shirki uusan ahayn hadii la cadaabo oo la ciqaabo oo hadii waxa inta lagu ciqaabayaadan warka hayn laakiin waxa weeye waa kuma waarayo naar kuma waarayo qofkii tawxiid ku dhinta aakhirka waa laga soo saaray marka hadii taasina ay ku dagino maadaama Ilaahay rumaysan tahay waxa doonto iska falha oran maadaama naar ku waarayna naarta saacadna Allah ka dhigay uma dul qaadan ka dhigay laakiin kun sano markaad ku jirto laga soo saaro markaas dhibaatada ay leedahay marka ha ku kadsoobin waxa weeye mar daba tawxiid ku dhimato waxa weeye naar ku waarimaysin uma inuu adkaysan karo naarta walow ilbriqsi baha ahaatee Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaka badbaadiyo marka nabigu wuxuu leeyahay qofka aan shirki isagoo Ilaahay u shirkiyeyn Ilaahay kaliya waxa weeye caabuda وآمنسان الله حق لو عابدو إلهي كلي إنو يهي الله كلي وسنجرين ساسنا إلهي كل ما روح حاسي وحوي جنو قليا قفك إلهي الله كل ما بالعكس أنت عكسي هذا سوي له شركية لينا نار بو قليا ودبا ولقوا كواريا قفك الشركة كدعا وحوي نارت وكواريا دوسا كتو بيت كينين الشركة وكل انتو قفكي سوي له شركية ليا إلهي غيرك آمنسان حق إلهي اللي يعدك للسين يدكو جيريودو سواء توبت كيني نار بو ولغي كواريا وكجريا marka waxaan ka qaadanaynaa bishaaradaas qofka tawxiidka in lagu dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa kaliya yeelo iyo waciidka goodiga leedahay Ilaahay ruuxa u shirkiyeela in Ilaahay agtiisa uu naar galiyo kuna waarayo naartaas oo waxa weeye Ilaahay dambiyada kala dhan waa dhaafaa لكن وحوي إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا شرك يرى الله ما ضعفه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن وحي أنت كسوهرة أو شرك كسوهرة عدو دون ضعفه
عن جابر رضي الله عنه الله كره النقضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكورنا قال إن رسولك يرادي إن بين الرجل وبين الشرك إن بين الرجل قفك وبين الشرك وحول حيي والكفر قال لماذا ترك الصلاة صلاة الله يتو رواه المسلم نبي حليه هي شرك وحوي قفك يشرك oo shirkiga hadda laga soo warramay qofka isagoo waxa uu shirkigaas ku jiro ku dhinto naar ku waarayo iyo gaalnimada Ilaahay disi cad loo diido jaxdiya waxa uu inuu salaada ka taga u dhaxaysa qofka muuminka muslimiinta waxa lagu yaqaanaa igaalada kaga soo aan Ilaahay duu sujuudayaan subhanahu wa ta'ala marka xadiiskana waxaan ka qaadanaynaa waciidka iyo goodiga leedahay qofka salaada ka taga inuu waxa uu shirki iyo kufri والنبي يرادي با وهو وحبا كاحيكتا إنا شرك كل عضينا كفر ضبا إنا صلاة كتكتو مركا صلاة علماء الإسلام كنا ساسي وبدينيهين وفي صلاة كتكا إنو قال يحي قاركم من العلماء ذوي كلا قادنا وحلا قفك كان دوغة تيجي جحدي ديدين وحوي وصلاة ديدين هاي بقولي صلاة بم وسن آمن سنين مركا هذا الكمان ولو قالوا بيا حكامتي قالوا قادن جدي وبنا قادنايا لكن هديو صلاة دوغتي كسلي عاجسي وهسي ku jirto culimadu waxay leeyihiin waa salaada tukaba loo oranay hadii tukan waayo marka wala la tacaamulaya laakiin kaalama gaalaysiinayo way baqar culimada kamid leeyihiin عن جابر رضي الله عنه الله كان نقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكى ورينا قال رسولك يراهدي يبعث والله صار كل عبد أدون إذ الكيس على ما مات عليه على ما الذي شيء كركس لغو صار مات عليه وكل انت روح كستا وحلغو صار يا النبي بيقول لي هي وحو غيريودي يعني عملك هي مركو غيريوني عملك لغو صار يا يدنا halka waxa way goodi ba ku jira oo leeyno goodinayo ah inaynu iska fiirino acmaashinu qabanayno maxay yeelay waxa la amalkaad ku sugan tahay markaad geeriyooto ayaa lagu soo saaraya amalkaad ku sugnayd markii geeridu ku iimaanaysi hadii wanaag iyo khayr ku sugnayd iyo in Ilaahay diinkiisa u khidmayso hadii waa wanaag hadii aad waxa weey diinka Ilaahay la dagaalanto iyo waxa weey cadow Ilaahay iyo dadka muuminiinta aad ku ahayd sidaadii baa lagu soo saaraya amalkaad qabanaysi idan baa lagu soo saaraya acmaashinu qabanayno إن سكوا ناجينو كفير سنة عمل كنا قبلنا إلهي منو دويني يمسوين كفويني عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن الله كره النقد وحلا جور يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق سوي حكم كورينا ينقار كم إذا حاسس النبي قال إنه يرى هذي النبي من روحي أتاه تجا عراف قفك وتجا فعللو عرافك وقفك وحشيشة فسأله ويدي مرك عن شيء ويدي لم تقبل لك أقبل ما يله روح صلاة 40 ليلة أفرتن هبين وحوي صلاة لك ما أقبله ما المهم يريد التابع بيويه نبي يقول لي هي قف وتجا قف وحشيك شيء فهللو كوا وحشيك شيء يعني قف وحشيك شيء وقف غيب شيء جناية وحام مقان أو إن أضمض وحوي لسين إني أجدان إلى سبحانه وتعالى جاركوا أيو شيء بعد بقى كارلون طيب markaasuu wuxuu leeyahay baadidaadii meel heblay joogtaa xilliga noocaas aad helaysaa saasaad u raasanaysaa dariiqaas aad maraysaa waxa weey nooc kamid ah faalkii weey marka qof kasto oo marka qofka noocaas oo qaybiyaadka sheega wax weydiiya lagama aqbalayo 40 salaadood waxa hadda la yaaba kii qaybka sheeganaya isaga xaalkiisu muxuu noqonayaa kii wax weydiiyay hatta inuu i'tiqaadiyo wax rumeeyay lama shardin qofka weydiiyay shay baa weydiisiyo xaaladii waxa way ula qasaday qofka shay ula qasda oo su'aala 40 salaadood laga aqbalay maayo عن ابن مسعود رضي الله عنه الله كره النقدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكورني قال إن الرسول كيري إن أشد الناس دتك كوا ضرا عذابا من جهة عذاب حق عذابك عند الله إلهي أكتس يوم القيامة مالك قيامه المصورون ويقوا وحصوره اتفق عليه نبيقول حليه هي دتك ودرا وحوي عذابك مالك قيامه وحوي ودتك وحصوره صور كاس
وصور بني آدم نفله وحوي الله صوره هدان فرسمو يوجدك لغا لهين ودن معنا مع قفكو سن wax kale laga wadin يعني in wax la sawiro oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqiisa kamid oo bini aadan oo kale la sawiro ama xayawaan iyo xuduna ha ahaade an qasadi ujeeday iyo farbarasho marka aan laga lahayn marka kaasa laga hadlayaa sawirka taswiirka noocaasa ayuu dadka noocaas sameeyay maalka qiyaame wixii ay sawireen nooleeyo nafsoo galiya baa lagu oranaya marka sawirkaasna waciidkaas ku soo arooray waa inaad bini aadan waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa oo kale inaad sawirtid oo aad waxa weeye adoo aan deedan gaara markaas iyo baahi hadii jidho ama waxa weeye qofku farsamo ku baranayo sheygaas mararka waa laga soo reebaa marka ma fiicna taswiirku taswiirka laga hadlayona waa kii inaad waxa weeye noole sawirto ah hadaan dan laga lahayn hadii dan laga leeyahay xayawaankan waxa weeye meesha loo baahan yahay taswiirkan ama meesha xayawaankaas lagu gadaa marka sawirka kan aad xayawaanka samayso meesha ku soo dhajisay waxa dawladan leedahay meesha in lagu hayo waxyaalahaas oo kale iyaga waa laga soo reebaa iminka aad buu u badan yahay anwaacda taswiirku laakiin kan laga hadlayaa waa kan ah ina naf nool waxa weeye qaabkeedu wuxuu sawirto oo bini aadan oo kale sawirtid waxyaalo noocaas laga hadlayaa kaas weeye kan marka cadaabka dadka nooc taswiirka noocaas sameeyay waxa weeye cadaabka ugu daran imaanka qiyaamada leeyahay عن ابن مسعود رضي الله عنه الله كره لقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكورنا قال إن رسولك يرهدي من روحي قرأ أخريا بالآيتين لبضع آيضوض من آخر سورة البقرة لبضع آيضوض قدام يا آمن الرسول يا آيضا كدام يسوي في ليلة هبين أخريا كفتاه لبضع سوي كفليهين أو سحر iyo in bilaaya ku dhacdo way kaga filan yihiin barakaad iyo khayraad inuu helona way kaga filan yihiin waxyaalo badan bay kaga filan yihiin oo maalin qofkaas way ka faynayaan humumkii murugadii xataa way ka kafaynayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye suruur buu qofka ka dhigayo qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran marka nabigu xadiiskana wuxuu ku sheegay labada aayadood inay sunna tahay inaad waxa weeye habeenkii aad akhridid labadaas dad akhridu way kugu filan yihiin waxyaalaha kaaga filan yihiin mufassiriinta aad bay uga hadlaano wax kasta way kaaga filan yihiin saam caamka baa wacan man ruuxi qara akhriya bil aayatayn labada aayadood min aakhir suurati al-baqara ugu dameeya fi laylatin habeen akhriya kafataahu labada aayadood way ku filan yihiin sixir iyo xaasid iyo xiqdi way kaga filan yihiin waxa weeye way sugayaan barakaad iyo khayr badanna way waxa way u